waxayna ciidankii soo qaadeen qoortii ay ka soo gooyeen Nabi Yaxye waxayna u keeneen boqorkoodii boqorkiina waxa uu siiyay naagtii uu doonayay inuu guursado naagtii markii la siiyay aad ay u faraxday balse farxadaasi waxay noqotay farxad aysan nolol ka dambeyn waxa dhacday arin ay la argagaxeen dadkii meesha joogay iyada oo u soo socota hooyada ayuu dhulka hal mar bilaabay inuu gariiro bilaabayna inuu dildilaaco aad ay u qeylsan naagtii waxayna u wactay dadku dhawaa balse dhulka ayaa bilaabay in naagtii si tartiib ah u laqo hooyadeedna markii ay aragtay in gabadheedu wax nolol ay u harsaneen ayay ciidankii amartay in qoorta laga soo gooyo gabadheeda halkaasna ay ku dhimatay naagtii dalbatay qoortii Nabi Yaxye calayhi salaam waxa soo haray boqorkii amray oo ka dambeeyay dilkii nabiga isna xagee ku dambeeyay waxa dhacday markii la dilay Nabi Yaxye in dhiigga ka tifqaamay qoortiisa oo istaagi waayo oo ay dadkii meesha joogeen ay celin waayaan waxaana u burqanayay dhiiggaasi sidii webi oo kale maalmaha ka mid ah ayaa waxa yimaada boqor la yiraahdo Bukhtanasar kaas oo xukumayay boqortooyada Babylon waxa uu arkay boqorkii dhiiggan saayidka u burqanaya dabadeedna dadka ayuu weydiiyay halka uu dhiiggan ka imaanayo dadka ayaana u sheegay qisadii meesha ka dhacday Bukhtanasar aad ay ugu carooday arrinkan waxaana iclaamiyay dagaal in lagu qaado dhammaan reer Bani Israa'iil dabadeed reer Bani Israa'iil waxa lagu qaaday dagaal aad u qaraar waxaana socday dagaalkan maalmo waxaana halka ku geeriyootay 70,000 oo qof oo reer Bani Israa'iil ah oo ay ku jiraan boqorka geystay dilka Nabi Yaxye markaa kadibna waxa istaagay dhiigii Nabi Yaxye calayhi salaam